madax xanuunku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee ay bukaanku u yimaadaan xarumaha caafimaad, taasoo ka dhigan in madax xanuunku yahay mid ka mid ah cabashooyinka ugu muhiimsan ee dadku ka cawdaan. Badanaa dadku waxay adeeg caafimaad u raadsadaan madax xanuunka iyagoo qabay bilo ama sanado. Sidoo kale, madax xanuunku waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee shaqaaluhu ay shaqada uga fasax qaataan ama ay hore uga baxaan. Barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa madax xanuunka noocyadiisa, waxyaabaha keenay iyo sida loola tacaalo. Baahsanaanta ama sida uu adduunka ku yahay madax xanuunku. Madax xanuunku aad ayuu ugu badan yahay dadweynaha oo dhan, oo 50% dadka ayaa madax xanuun ku dhacaa ugu yaraan xilli cayiman. Nooca migraine-ku waxa uu aafeeyaa 18% ka mid ummadda oo dhan, halka nooca ugu caansan madax xanuunka ee loo yaqaano tension type headache uu aafeeyay 52% bulshada. Guud ahaan bulshada oo dhan 3% qof ayaa leh madax xanuun muddo dheer. qaybaha madax xanuunka. Madax xanuunku waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc oo muhiim ah oo kala ah mid aasaasi ah iyo mid doog ah, kuwaas oo ku kala duwan xaddiga xanuunka iyo muddada iyo soo noqnoqoshada inta. Madax xanuun aasaasi ah maxaynu uga jeednaa? Waa nooc madax xanuunka ah ee aanay keenin xaalad kale oo caafimaad oo jirta, ee iyadu iskood u yimaada, waxaana ka mid ah dhanjafka ama migraine-ka ka loo yaqaano. madax xanuunka nooca labaad oo loo yaqaano tension type headache, kuwaasoo in ka badan 90% iskood u yimaada ama 90% iskood u yimaada. madax xanuunka doogta ah waa madax xanuun doog ah oo ay keentay xaalad caafimaad oo jirta sida infection ama caabuq iyo wax la mid ah. Noocani waxa uu keenaa in ka yar 10% madax xanuunka. madax xanuunka nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa cluster headache, waa nooca ugu yar noocyada madax xanuunka. waxa uu leeyahay madax xanuun marar kala durugsana oo badanaa dhinac kaliya qofka xanuuno ama koodku ama isha agteedu ay xanuunto. waxaa la xidhiidha ilmo iyo cabadh ka yimaada qofku uu yeesho. madax xanuun aad u daran waxa uu sidoo kale dhacda in qofku labada indhood midkood casaato. nooca afraad waxaa loo yaqaanaa tension type headache baa loo yaqaanaa. waa nooca ugu caansan madax xanuunka oo noqda 75% dhammaan madax xanuunada. ku dhawaad 90% dadka waaweyn waxaa haya madax xanuun nooca labaad ah oo loo yaqaano cluster headache. waa madax xanuun la moodo in madaxa la cadaadinayo ama madaxa uu xadhig ku xidhan yahay, sida magaca ka muuqata tension oo kale ama giigsanaan weeyaan, waxaana qofka xanuuna madaxa oo dhan. madax xanuunka noocan qofku wuu mashquuliyaa laakiin badanaa aad uma sii darna. wuxuu qofka ku kacaa xilliyada fikirka badani jiro ama maalmaha shaqada qofku ku badantay. mararka qaar qofku waxa uu hayn karaa muddo dheer maalin kasta isagoo xanuunaya. dhanjafka ama ka loo yaqaano migraine-ka, noocani uma badna sidii hore, waxaana uu aafeeyay ama ku dhacay 12% bulshada oo dhan ama 6% ragga iyo 18% dumarka. celcelis ahaan 4 qof ee dhanjafku hayaba 3 ka mid waa dumar. waa madax xanuun garaac badan leh oo aad moodo inuu ruxmayo ama ridan oo kale ah. badanaa qaxa qofka xanuunta madaxa dhanka ka mid ah ma qayb. qofku waxa dhiba iftiinka badan ama codka dheer. waxa sidoo kale uu qofku yeeshaa yalaalugo kaasoo mararka qaar uu matag la socdo. madax xanuunka noocani waxa uu leeyahay saadaal lagu sii garto in madaxu qofku soo xanuunayo. inkastoo ay kala duwan yihiin, waxa uu qofku ku sii arkaa astaan uu ku garto in madaxu mar dhow xanuuni doono, sida inuu arko leydh ama fallaadho iftiin oo indhihiisa hor booda, caloosha oo sii xanuunta iyo wax la mid ah. mid ka mid ah 5 qof ee dhanjafku hayo ugu yaraan mid baa leh saadaal ama aura loo yaqaan. badanaa madax xanuunka noocani maalin kasta ma yimaado, maalin ama 2 cisho ayuu yimaadaa, wiigi ama muddo dheer baa u dhaxaysa. maxaa kiciya madax xanuunka? waxa keeni kara madax xanuunka waxyaabo tiro badan, taasoo ay muhiim tahay in qofku u fiirsado waxa ku kiciya madax xanuunka. haddii qofku waxa ogaado, waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa noloshiisa, isagoo ku dadaali doona inuu waxa iska yareeyo oo ka dhigan madax xanuunkiina ka yaraan doono. waxaa ka mid ah kuwaas arrimo la xidhiidha shucuurta ama dareenka qofka, walbahaarka, warwarka, jahwareerka iyo xataa farxadda badan. arrimo la xidhiidha cuntada, bunka, shaaxa, chocolate-ka iyo noocyo kale oo cuntada ah. arrimaha kale kiciya madax xanuunka waxaa ka mid ah hurdo yaraanta, hurdo badnaanta, shaqada badan, cuntada oo qofku aanu cunin xilligeeda, nabarro ama jug qofka soo gaadha. arrimo la xidhiidha deegaanka, cadceed kuleylka, iftiinka badan ee cadceedda, isbedelada cimilada, urta aadka u daran iyo qiiqa. arrimo la xidhiidha dheecaanada qofka xilliga caadada dumarka oo kale, kiniinada kale koryaha
gabadha xilliga ay caadadu kasii tagayso oo loo yaqaano premenopausal period. daaweyntu maxay noqonaysaa? daaweyntu waxay noqonaysaa kow waa in marka hore la ogaado nooca madax xanuunka waa mid aasaasi ah mise waa mid doog ah oo xanuun keenay. sidoo kale waa in la ogaado nooca gaarka ee madax xanuunka. waa in waxa ku kiciya uu qofku raadiya iskana ilaaliyaa. daawooyinka ugu fudud ee la isticmaalo waxaa ka mid ah paracetamolka, ibuprofen iyo kuwii la mid ah oo loo yaqaan xanuun baabiyaasha. waa in aanu qofku isku eegin madax xanuunka ee uu daawo raadsado haddii xanuunku joogto noqdo oo sidoo kale noqdo mid aad u daran.